ويدي سلام صاحب يال ملو بجوكتان سوال بمقال كايدي سو غارايو بالين وناكسن هبين وناكسن وقت ولي باي كوتاي او وناكسن كسو دوادا warbixinteeni suuqa kala iibsiga saad la socotaan horyaalka Premier League waxa ka haray wax ka yar hal bil kooxihii Liverpool iyo Newcastle oo maalmihii u dambeeyay dagaal baan ka dhaxeeyay ayaa lagu kala baxay dagaalkii kooxaha Chelsea iyo Man United oo war aad iyo aad u weyn ka soo kordhay inta gudaha u galay muuqaalkaas oo dhan waxaan ka codsanayna page-kiina follow dhahdeen haddii aadan follow ii ahayn muuqaalkaana aad lag badan siisid soo u gaara saaxiibo badan sida adigoo kale haddii aad hore iyo la joogtay waa ku mahadsantahay la joogistaada muuqaalka inta qabatid sii share garay saaxiibada la wadaag ku soo dhawaada muuqaal cusub waayahay warbixinteeni maantay haddii aan ku bilaawno kooxaha Newcastle kooxda Liverpool oo maalmahani dagaal baan ka dhaxeeyay maadaama Liverpool ay raadinayeen Isaac waliba Liverpool ayaa ku raadinaysay lacag record ah Liverpool waxay rabeen Isaac inay ka dhigaan ciyaaryahanka Premier League ugu qaalisan inay ka dhigaan maadaama ay rabeen inay ku dalbadaan lacag dhan 120 milyan balse kooxda Newcastle ayaa tiri kooxdani lacag uma baana ciyaaryahankan waxaan rabnaa inuu sii joogo kooxda Newcastle maadaama aan ciyaarayno Champions League balse kooxda Newcastle ayaa qorshe aad iyo aad u wanaagsan u degtay kooxda Liverpool qorshahaas oo ah waxay aadeen ciyaaryahanka lagu magacaabo Ekitike ay dalab rasmi ah ka gudbiyeen kooxda Newcastle kadib Liverpool ayaa ogaatay Newcastle inay dalab ka gudbiyeen Ekitike Liverpool ha cararto oo Ekitike ha aadan waxay isdhahayeen kula qabsada kooxda Newcastle kadibna Newcastle waxay soo dhiibi doonaan Isaac balse ayar inta loo aamusay ayay Liverpool sheekadii ka dhabeeyeen ciyaaryahanka naftigiisa inta soo booday ayuu ku dhahay aniga Newcastle ma doonaye waxaan u baahnaa inaan u ciyaaro kooxda Liverpool wararka hadda soo dhacaya ee daqiiqadaha yar yaallo waxay sheegayaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Ekitike iyo kooxda Liverpool inay wada gaareen heshiis rasmi ah waliba 6 sano ah kaliya waxaa dhiman labada kooxood inay wada heshiiyaan kadibna sidaas uu ku noqdo ciyaaryahan ka tirsan kooxda Liverpool Newcastle waa sida ay rabeen inay helaan maadaama uu badbaadayo Isaac dhinaca kale kooxda Manchester United ayaa ka fikirayso inay Chelsea u soo bandhigaan waxa la yiraahdo ciyaaryahanno in la kala bedesho ama wax lagu magacaabo swap deal kooxda Manchester United ayaa ka fikirayso inay soo qaataan Nicholas Jackson Chelsea ay siiyaan Garnacho kooxda Man United sida la socono Garnacho waxay soo dhigeen suuqa asiga kaliya ma ahan ay kala suuq ay soo dhigeen Rashford Anthony Sancho Garnacho iyo Malacia balse ilaa ay hadda wax ciyaaryahana oo laga iibsaday intaas oo ciyaartoy ma jiraan Manchester United ayaa doonayso Manchester United oo waqtiga aad iyo aad ugu gaaban yahay ayaa raadinayso inay xal u helaan ciyaartoyda suuqa soo dhigay waxayna u baahan yihiin inay ka bilaabaan Garnacho maadaama ay u baahan yihiin weeraryahan waxayna ka dhax arkeen kooxda Chelsea inay kala wareegaan Nicholas Jackson Garnacho ay siiyaan kooxda Chelsea balse daawade haddii aan ku weydiiyo adiga haddii uu dhaco heshiiskaas kooxda ayaa faa'iido qabta ma Chelsea mase kooxda Man United qaybtoos nalooda intaas ku soo gabagabeynaa maanta muuqaalkaygii aan ugu hadlayay suuqa kala iibsiga mar kale waxaan ka codsanaynaa haddii aad tahay markaad kuugu horeysay aad page-ka soo booqatay inaad page-ka follow dhahdid laagtaada oo baahannahay soo u gaara saaxiibo badan sii share garay oo saaxiibada la wadaag intaa kulmi doonno muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo